يالي البور كويالي إبلا لما ماني البور كويالي عيني سالي. taariikhda fog oo ay leedahay ceelbuur mar walba ma ahayn sheekada qura ee laga tabiyo dabacana dadka ku noolna ma ahan kuwa qura ee dhaxalkeeda lagu halqabsan karo jeedaalinta tirada magaalooyinkii qadiimiga ahaa ee jiray dowladnimadeena ka hor kuwaas oo waqtigii gumeysiga lagu yiqiin kacaanka gobonimo dirirka. tani waa mid ka mid ah magaalooyinkaas kuwa oo door weyn ku lahaa yagleelka duni cusub oo Soomaalidu leedahay deegaan quruxsanaanta iyo ilbaxnimada dadeed ee qarniyo badan ka soo jirtay geedi socodkeeda nololeed. waxay ceelbuur dhaxal siisay astaan iyo amaan gooni ah. waxaa intaasi dheer kheyraadka dabiiciga ee sida gaarka ah looga helo dhexdeeda ayaa siisay micno gaar ah. waxaase dhinacaas fiican had iyo jeer barbar socon jiray dhinac madow oo magaaladani waaye arag ku tahay dhicista xukunka Siyaad Bare. ceelbuur waxay ka mid ahayd meelaha sida aadka ah loogu diriray waxaana ka dhacay dagaal sokeeye oo sanado badan magaalada ka dhigay geyi laga hayaamay. in yar kadib markii laga heshiiyey wixii dhacay noloshu waxay ku soo laabatay sidii lagu yiqiin. reer magaalkii beled ku noolka ahaa ee yiqiin sida nabadda loogu caanamaalana fursad ay dib ugu dhisaan. dabayaaqadii sagaashameeyada waa markii ay ugu qurux iyo qaayo badneed waxayna dhab u lahayd milgadii lagu yiqiin. laakiin maanta halkan waxaa jira uma dhawa wixii ka jiray 20 sano ka hor markii aan ku dhex ciyaari jirnay daafaheeda. noloshuna uma sahlana sidii hore. kala bar dadkii lagu yiqiin magaalada waxay u kala qaybsameen qabri iyo qurbo. faras magaaleedkii mashquulka badnaa wuxuu noqday mid qaaban. cidladu waa wehelka qura oo aad kula dhex socon karto gudaheeda. guryaha qaar waxay ku dhammaadeen oogada dhulka. dhirtuna waxay la dhimatay oon iyo arag la-aan. dugsiyadii waxbarashada iyo xarumihii lagu dhisay iskaa wax u qabsa ee danta guud loogu adeegi jiray waxay u taagan yihiin xusuus ahaan. xeradii shiinaha, buundooyinkii magaalada, shiirkoolihii kubadda lagu ciyaari jiray, xaruntii daawad ee fiyaalaha ahayd, xerada Sheekh Maxamed Faarax iyo dugsigii dhexe ee magaalada ayaa gebigooda noqday kuwa dayac u dumay ama dano kale lagu qabsaday. mid walba oo goobahani ka mid ah waxay waqtigii caruurnimadeena u lahaayeen ahmiyad madadaalo iyo mid waxbarasho. mar walba oo xusuusta iyo xaaladda taagan ay isugu keytagaan waxaad si naxariis leh ugu eegaysaa fiiro gacaltooyo. waxaase aad dhab u ilmeynaysaa markii aad dul imaato minjirkii aan ku dabaalan jirnay kaas oo noqday haro lagu qubo odxaha iyo ragaadka oo aan ku habbooneyn dabaashu. si kale marka loo dhigo waxay qayb ka ahayd isha madadaalada ugu weyn oo caruurta ceelbuur ka helaan farxadda iyo reereenta mar walba oo roobab mahiigaan ahi ay ka curtaan. la yaab ma lahayn in galbiyoodyada buundooyinka, barkadaha, baliyada iyo dabcan minjirka dabaal la isugu yimaado. dukaamadii ganacsiga iyo suuqyarihii la isugu imaan jiray aroor walba ayaan u camirnayn sidii hore. maqaayadihii waaweynaa ee laga cuni jiray ayaa sidoo kale albaabada isugu laaban. ceelbuur waxaa soo maray sanado adag oo qabsashadii ciidamada Itoobiyaanka ay ugu darneed. ka hor waqtigaas dhismaha iyo dheeha ka muuqda magaalada wuxuu ahaa mid lagu dhaayo tiirsado. markii ay isaga baxeen magaalada 2 sano ka hor gees walba waxaa ka dhashay geed yuhuud dhirta inteeda kale ka mamnuucay in ay ka agbaxaan. xitaa geed talaaladii waaweynaa ee buundada labaad ee soo aaday Ceel Riig ka taagnaa wuxuu ka dhigay kuwa qalalan. Ceel Riig laf ahaantiisa oo ah midka ugu weyn ee magaalada siiya biyo ku filan aan daqiiqadna ka go'in waa kan u suurageliyey in dhexdeeda lagu macaasho. waxaana lagu dadaalay in had iyo jeer lasii hormariyo. dameerihii aanu bedri jirnay oo in badan iyaga oo ku badartamaya ay ku jabeen ayaan u muuqan sidii lagu yaqiin. nasiib wanaag gamaanka kaliya ee halkan ku nabadgalay ayaa ah fardaha. hareeraha ceelka Yuusuf Xeele waxaan ugu tagay fardihii ceelbuur oo jiilaal ku daba dheeraaday uu ka dhigay kuwa golongolay. qaar kale ayaa la iigu sheegay in loo daabulay degmooyinka hoos yimaada iyo dabcan caasimada Muqdisho. fardaha ceelbuur waxay qayb kale ka yihiin astaamaha lagu yaqaan magaalada.
marka laga yimaado qarniyadii hore ee fardafuulku ahaa gaadiid looga qayb galo dagaalada iyo fariinsidaalka, waqtigeygii waxaan kusoo gaaray iyaga oo lagu galbiyo aroosyada, laguna mashxarado fantasiyaha iyo munaasabadaha soo dhaweynta. goor hore waxaa muuqday dadaalo ay wadaan daayarta magaalada, kuwaas oo u guntaday inay geediga hayaanka sii ambaqaadaan, waxaa iyada oo laga jawaabayo duruufaha kala duwan ee isugu jira kuwa nolosha, caafimaadka iyo waxbarashada ah ee soo wajahay bulshada degmada Ceelbuur iyo nawaaxigeeda. waxaa arrintaas isu xilqaamay dhalinyarada degmada Ceelbuur oo is-abaabulay islamarkaasna samaystay ururo ay ku midaysan yihiin si ay wax ugu qabtaan dadka iyo deegaanka ay ka soo jeedaan. ururadan ayaana hana qaaday sanadihii 2013 2019 waxayna si lagu faani karo kaga jawaabeen baahiyada ka jira degmada iyo dadkeeda. haddaba baahida keentay in la aasaaso ururo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ujeedkooduba waxaa inooga waramaya mid ka mid ah aasaasayaashii urur ka mid ah ururadaas oo lagu magacaabo Cabdulaahi Xasan Sheekh Cali. iyada oo laga duulayo duruufaha nololeed iyo kuwa waxbarasho iyo kuwa caafimaad ee soo food saaray shacabka ku dhaqan degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran, waxaa arrintaas mas'uuliyad weyn iska saaray qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Ceelbuur, kuwaasoo jawaab cad u helay dhibaatooyinkii iyo duruufihii soo wajahay dadka ku dhaqan degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran, kuwaasoo la tacaalayay dhibaatooyin kala duwan oo iskugu jira qax, waxbarasho xumo, caafimaad darro iyo waxyaabo kale. haddaba iyadoo laga duulayo barnaamijkaas ayaa waxaa aas-aasmay ku dhowaad ilaa 3 urur oo ah ururada dhalinyarada sanadihii u dhexeeyay 2013 ilaa 2019 intuu u dhexeysay. ururadaas oo ka kooban ilaa 3 urur, baahida keentay in loo aas-aaso waxay ahayd in la helo ama la isku xiro dhalinyarada degmada Ceelbuur, bacdama ay wada joogaan caasimadii, in loo sameeyo isku xir guud oo ah dhalinyarada degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran, si ay iskaga kaashadaan in ay wax u qabtaan dadka iyo bulshada ay kasoo jeedaan ee degmada Ceelbuur. taas marka ayaa sababta ugu weyn oo keentay in ururadan aas-aasmaan, isla markaana ay samaystaan dallado ay ku midaysan yihiin. urur walbana uu soo bandhigo waxqabad mug weyn oo la taaban karo oo ay ku taageerayaan bulshada degmada Ceelbuur, wixii caasimada jooga iyo wixii kale ee degmadii iyo hareerada jooga, hadba sidii loo gaari karo. taas ayaa ah sababta ugu weyn ee loo aasaasay ururadaas. ururadaas marka waxay kala yihiin ururka horumarinta bulshada Ceelbuur, markii lasoo gaabiyo loo yaqaano ESTO, sidoo kale ururka horumarinta waxbarashada markii magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano adeeg, iyo ururka kale ee loo yaqaano ururka horumarinta dhalinyarada Ceelbuur oo asna loo soo gaabiyo IYED. 3daas ururba waxay ka midaysnaayeen wax u qabashada iyo taageeridda bulshada, hadday noqoto dhan caafimaad, dhan waxbarasho iyo dhan taakulaynta dadka tabaaleysan intaba. helidda kaalmada ganacsatada, qurbo joogta, odayaashii aqoon-yahanka ka soo jeeda magaalada waxay suurageliyeen taakulaynta danyarta ka soo jeeda degmada oo ku dhowaad 20 qoys oo ka mid ah loo qeybiyo lacag, hunguri iyo dabcan adeegyada caafimaadka iyo tacliinta. Cabdulaahi Xasan Sheekh ayaa sharaxaya sida ay u qabtaan howlahan samafalka ah iyo waxqabadkooda muuqda. haddaba ururadaas aan soo sheegnay ee ka kooban 3 urur, waxaa u suurta gashay inay soo bandhigaan waxqabad aad iyo aad cajiib u ah oo umug weyn, iyaga oo kaashanaya waxa ay iska ururiyaan, jeebkooda ka ururiyaan, iyo hadba dhaqaalihii kale ee ka helaan dadka qurbo joogta, ganacsatada, aqoon-yahanka, odayaasha iskugu jira ee kasoo jeeda degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran. waxaa u suurta gashay inay wax ka qabtaan 3daas dhinac. kow, dhanka waxbarashada. dhanka waxbarashada waxaa suurta gashay in la aas-aaso ama la sameeyo iskuullo
kuwaas oo laga sameeyey qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada Ceelbuur, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Ceelshiil oo laga sameeyey iskuul ay wax ku bartaan dadka deegaanka ah, iyada oo khidmadda macallimiinta mushaaraadkooda iyo iskuulka wixii ku baxay ay jeebkooda ka bixinayeen dhalinyarada degmada Ceelbuur ee ku midaysan ururadaas aan soo sheegay. sidoo kale waxyaalaha waxbarashada adeega waxbarashada laga qabto waxaa ka mid ah in sidoo kale arday joogto gudaha waddanka gaar ahaan caasimadda ay suuro gasho in la geeyo qaar ka mid ah iskuulaadka magaalada Muqdisho ku yaalla oo laga bixiyo fiiga waxbarashada. taasna waxay ahayd tilaabo kale oo hore loo qaaday si yacni looga taageero dhanka waxbarashada iyo inay u sii socoto waxbarashadooda. waxyaalaha kale ee jimciyadahan u suuro gashay intii ku jireen waxqabadkooda waxbarashada waxaa ka mid ah in ay qaar ka mid ah jaamacadaha waddanka ay ka helaan scholarships ama minxooyin iskugu jira kuwa gudaha iyo dibadda ah, kuwaasoo qaarna hadda la ballan qaaday, qaarka kalena shaqadoodu socoto. oon rajaynayna dee insha allah mar dhow in ay noo dhammaystirmaan. intaas marka waxay ahayd guulihii laga gaaray dhanka waxbarashada. haddaan u imaano dhanka caafimaadka oo aan ognahay caafimaadku inuu yahay waxyaalaha aasaasiga u ah aadanaha, iyadoo taas laga duulayo ururada dhalinyarada degmada Ceelbuur waxay wax ka qabteen arrinta caafimaadka si weyn, ayagoo taageero caafimaad oo hiil iyo hoob iskugu jirta ku taageeray qaar ka mid ah bulshooyinka degmada Ceelbuur ka soo jeeda oo la tacaalayay xanuuno iyo cudurro kala duwan, taasoo suuro gashay in la geeyo isbitaalaad ama daawooyin lagu taageeray si xaaladooda wax looga qabto. sidoo kale waxyaalaha caafimaadka la qabto waxaa ka mid ah in ururada qaar ka mid a ay fuliyeen mashruuc loogu magac daray heel caafimaad, kaasoo ka faa'iideysteen ugu yaraan 20 qoys oo ka soo jeeda degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran, oo loo sameeyey baaritaano bilaash oo dhanka caafimaadka ah iyo daawooyin intaba. waxaana arrintaas kala kaashanay isbitaalada kale ah isbitaalka Carafaad General Hospital iyo isbitaalka kale ee lagu magacaabo Kaalmo General Hospital, kuwaasoo naga saaciday in aan adeegaas caafimaad u fulino qoysaskaas danyarta ah ee aan iska bixi karin adeega caafimaadka. dhanka taakulaynta dadka tabaaleysan waxaa suuro gashay in jimciyadaha ama urur ka mid ay sameeyeen taakulayn dhanka dadka tabaaleysan ama danta yar, ayagoo ku taageeray qoysas fara badan agab iskugu jira raashin, daawo, dhar iyo lacag intaba, si looga jawaabo baahida dadka danta yar ee ku sugan caasimadda ee u baahan in lala gaaro adeega caafimaad gurmad. intaas marka haddaan soo koobno waa waxqabadka ay soo bandhigeen ururadan oo ka kooban 3 urur aan soo sheegnay. waxaa kaloo jira shaqooyin kale oo intaan ka badan oo ayana qorshaha ku jira oo ay rajeynayaan ururadu inay wax ka qabtaan hadday taageero buuxda ka helaan qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibad wixii ku nool. dadaal dheer iyo waxqabad xoogan oo ku suura galay isu tashi iyo wax wada qabsi islamarkaasna ay u riyaaqeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo jooga dalka iyo dibaddiisa waxay keentay in dhalinyaradu isku afgartaan in ay midoobaan oo ay yeeshaan hal dalad oo ay ku midaysan yihiin si loo sii xoojiyo howlaha baaxadda leh oo ay u hayaan bulshada degmada, gaar ahaan intay istaahisha in gargaar dhan walba ah loo fidiyo. waxqabadka mugga weyn iyo dadaalada xooggan ee ururada dhalinyarada degmada Ceelbuur ay soo bandhigeen, taasi waxay keentay ama sababtay in ururadu ay ku heshiiyaan in ay midoobaan si waxqabadkooda iyo ujeedkooda midaysan oo ah horumarinta bulshada Ceelbuur loo mideeyo. waxaa suuro gashay in 3 urur ay ku midoobaan hal dalad ama hal ururkaas oo lagu magacaabo ururka horumarinta
dhalinyarada Ceelbuur ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano aydo taas oo ay dad fara badan oo gudaha iyo dibadda ku noolba ay si weyn u bogaadiyeen isla markaana aan rajaynayna haddii la yiraahdo mustaqbalka dhow in ay wax weyn ka tari doonto howlaha jimciyadaha ay soo wadeen muddooyinkan dambe oo ah taakulaynta dadka iyo horumarintooda intaba sidaa ognahay midnimadu waxaa la yidhaha unity is power midnimadu waa awood midnimadu waa xoog haddii la iskaashado wax weyn ayaa soo baxaya Soomaalidu waxay tiraahdaa iskaashi iyo wadajir ayaa qaran ku taabgal marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in dhalinyaradu mar dhow halkaas dalad ku midoobay inay gacmaha isqabsadaan oo ay soo bandhigaan waxqabad intii ka ballaaran ka mug weyn marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan bulshada Ceelbuur ka soo jeeda hadday noqdaan diasporada iyo dadka gudaha jooga in ay taageeraan dhalinyarada degmada Ceelbuur ololaha ay wadaan isla markaana ay ku taageeraan fikir maskax dhaqaale iyo wax walba u baahan yihiin si guud ahaan dhalinyarada iyo dadka la iskaga kaashado in wax loo qabto degmada Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran